بسم الله الرحمن الرحيم داود يال كسر هذا برنامج كيني علماء تاريخ لو حكى بده شيء برنامج كينا ما أنت وحنا قصو قادم دونا عالم كوين فيثاغوريس فلو أيه هو يدي وشجعي إنه لان دونا ويل حكمت يصير كلا قروح يسكون درسدي وآذنها ولان وحكسو كلين دونا وأنا سيد التاريخ هنود شجعين مركا أي ورينيان شيء كذا على شذا عالم كعلمي حساب تعيدل كجريجا ولا شيء فيثاغوريس وحكم ده علماء الفلسفة دي حساب تعوق عن سنة الدنيا وحكم شيء مجال ساموس بريجا بدأ أجيانسي سنة كشام بقول إتضاعات الميلادي جهرتي أصلك أبيه سارخوس وحكسو جدي مجال صور هلك هو يدي في تاي يكسو جدي جزيرة سواس وحبرشدا يرانا يوكم بالله وحبرشدي سي وحكا قيب قاتل اللي بحني موين بدن سدا كالدانيين طليانية يجريجا وكسو جدي لباتن جركيس أيو أرضي نقضي حاكمك داليس أو كمدها تضبادي ugu xigmada badneed ee ilbaxnimadii Greega ayuuna wax ka bartay astronomiga iyo xisaabtaba sida oo kale wax ka bartay caalimkii weynaa ee Archimedes iyo sidoo kalena Naqshbandar oo ahaa caalimka cilmiga injineeriyada iyo sidoo kale chemistryga uu ku takhasusay markii 22 sano jir uu noqday ayaa wuxuu u safray dalka Masar isagoona arintaasi uu kula taliyay macalinkiisa Dalis halka uu ku noolaa muddo ka badan 22 sano xilligaasi aad ayuu u wanaagsanaa cilmiga xisaabta xilligaasi caalimka dhacdo weyn ayaa qabsatay farisiyiin ayaa Masar soo weerartay oo caalimkii dadkii ay qafaasheen ayuu ku darsadeen waxayna la aadeen dhanka Baabil 12 sano oo Baabil uu ku sugnaa wuxuu ku sii hormariyay aqoontiisa dhanka cilmiga xisaabta kadibna wuxuu dib ugu soo laabtay magaalada Samos oo ahayd halkii uu ka soo jeeday halkaas ayuuna ka bilaabay macallimadiisii inuu dadka wax baro xisaabta sida oo kale dadka ayuu la wadaagi jiray khibradiisa falsafadiisa ilbaxnimooyinkiisa kala duwanaa uu ka soo kowsaday taariikhyahanadu waxay sheegaan in fikradaha caalimkan uu waday lagaga soo horjeesaday dhanka magaalada Samos oo markii uu 2 sano uu joogay kadib oo ugu safray magaalooyin dhowr ah oo koonfurta Talyaaniga ku yaala halkaasi ayna fikradihiisu ay ka marin dhaleen oo ku faafiyay aqoontiisii iyo sidoo kale afkaartii uu waday gobolka Caratoni ee dalka Talyaaniga wuxuu ku aasaasay waxa loo yaqaano Pythagorean Brotherhood oo kamid ah koox kamid ah ardaydiisii iyo sidoo kale xirtiisii oo saameyn ku yeeshay in aqoontiisii la faafiyo wixii ugu muhiimsanaa ee cilmiga uu ku soo kordhiyay waxa kamid ah Pythagorean theorem oo ilaa maanta ay ardayda loo dhigo taa oo muhiimad aad u ballaaran u lahayd cilmiga xisaabta iyo injineeriyada sida oo kale waxa uu leeyahay aragtiyo kala duwan oo dhanka xisaabta ah oo wax badan laga faa'iiday ardaydiisii injineerinka wuxuu ku soo rogay xeerar adag wuxuuna u sheegay in laga maarmaan tahay in waqtiyo gooni ah ay ilaalsadaan isla markaana ay aanu hilibka cunin oo iska ilaaliyaan cilmiga astronomiga kaalin weyn ayuu ka qaatay waxaana la sheegaa inuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee dahruga in dhulka ay kubad ahaan u wareegsan yahay taariikhyahanadu waxay sheegaan inuu noolaa 100 sano waxaana loo badan yahay inuu dhintay sanadkii 495 ee miilaadiga ka hor daawadayaal barnaamijkii aanu ku soo qaadanay caalimkii weynaa ee xisaabta ee Pythagoras aanu ku soo qaadanay barnaamijkeeni intaas aynu ku soo gabagabeynayna inta ku kulmin doona barnaamij noocan oo kale nabadgelyo